muwaadinka dibadda ka yimid waa dadka la haayo oo karantiinka ku jira waxaan rajaynaynaa inuusan cudurka ku soo bixin waxaan lahayn doonaa intii amaaris kale oo 2 iyo 3 laga xaqiijinaa waa caafimaad qaba wax calaamada kama muuqdaan xaalado badan oo saas ah jira oo soo ka muuqdaan calaamadii cudurka waxaan ilaahay ugu baryaynaa inuusan cudurka ku soo bixinin waxaan rabaa bulshada inaan uga faa'iidaysto maanta wacyigelin ku saabsan cudurka sida loo xakameeyo soo la socotaan waddankeena xaaladda caafimaad waa iska liidata oo dadka soo koraya dhibaato sababtaas waxyaalaha aan ku dadaali karno guud ahaan bulshada Soomaaliyeed waa inaan cudurkaas ka hortagno sidaad la socotaan diyaaradihii waa la geliyey inta dhibana waa lagu daba jiraa in la geliyo oo safaradii isu socodkii waa la geliyey waxaa kaloo la hakiyey goobihii shaqada oo istinaan ayaa la fasaxay waxaa kaloo la hakiyey oo la fasaxay ardadii dugsiyada dhiganaysa jaamacada muwaadin kastoo ka yimaada meelaha qatarta ay ka jirto uu ku haayo waa la xakameynayaa waa la karantiilayaa ilaa iyo 47 bil ayaa waa wax loo baahan yahay in la sameeyo sababtoo ah qofkana xaaladiisa in la xaqiijiyo haddii cudurka uu qabana aanan ugu daynin bulsho oo intii ka badan uusan cudurka qaadsiin waa taxadar muwaadinada ku jira meelaha karantiinka waxaan ka baryaynaa inay noo kala qaataan ay nala sugaan ilaa iyo la xaqiijiyo in cudurka jirkooda kusoo ku jiro waxaan rabaa inaan u sheego bulshada waxyaalaha ugu badan oo laga hadlaya waxay ahayd in isku socodka iyo meelaha la isugu yimaado ha ahaadaan iskuulaad ha ahaadaan jaamacada ha ahaadaan xaflada totally in la joojiyo aadna loo yareeyo kulamada ay isugu imaanayaan dad ka badan 5 qof in la kala dheeraado oo maaragtay aan gacmaha la iska salaamin in aanan leys xagareynin oo aan leys qaangoonin cudurka waxyaalaha uu ku fido oo dhan waa la sheegay wasaaradda waa qaybisay baariyayaasha waa la sheegi doonaa wacyigelinta waxaan wada awoodyo inaan sameyno qof walbo annaga naga mid ah uu samayn karo waayo waa idin baryaynaa waxaan idinka baryaynaa in la dulqaato oo ilaa iyo intii amar dambe u soo baxayo la yareeyo safarna la aado meelaha waaweyn la isku imaano ardada guryaha lagu haayo haddii ardayga iskuulka iyo dugsiga laga celiyo uu guriga joogo laakiin bannaanka markuu u baxo ilmo kaloo badan uu la cayaarayo wax weyn ma aanan sameynin still weli waxa waa ilmihii contact leeyihin waa kulmaa calaamadaha qofka isku arko waxaa jira online oo sheegi karaa waxa uu sameeyaa qofkii iska dareema calaamadaha inuu wacdo teleefanka la hago qofkii xanuunka loo tago la fiiriyo haddii calaamadihii qofka leeyahayna in la xakameeyo la ogaado qofkaas ilaa iyo intii uu ka caafimaad qabo waa ku celinayaa marka Soomaaliya walaalayaal waxaan idin leenahay hal la yareeyo salaanta meelaha cariiriga ayaan la isugu tegin gacmaha waxyaalaha ugu fudud oo lagu qaado waa gacmaha adoo taabtay qof cudurka qaba meeshu gacmaha ugu yaraan 20 second in saabuun iyo wixii looga hortagay jeermiska lagu dilo in lagu dhaqo in la yareeyo socodka in qof walba gurigiisa uu isku xakameeyo si asagana u badbaado qofkii kaleeto oo bulshada kalena uusan u gudbin cudurka waa cudur hadduu hal qof qabo qaadsiin kara ugu yaraan 10 qof oo guriga joogto waa wax waajib la wada saaran culummo civil society takhaatiir qof allaala qof kastoo Soomaali waajib ka saaran yahay inuu xakameeyo in la kala dheeraado inaan salaamin in nadaafadda lagu dadaalo gacmaha aad loo dhaqo qofka nadaafadda jirka iyo nadaafadda guriga iyo meelaha wasaqda biyaha la booliska hagaajiyo in guriga la joogo waxyaalaha waa waxyaalaha aad loogu xakameyn karo waxaad arkaysaan wadamo waaweyn oo naga dhaqaalo badan oo naga qalab badan oo caafimaadkooda naga horumarsan yahay in meydadkooda maalin walba qaarkood 700 ilaa 800 ay dhimanayaan waxa ugu horeeya waxa waaye waxay dadka iska indhaxeen calaamadihii iyo sida lagu xakameyn karo oo ay ka koob tahay inaan la saddex gelin in la kala dhowrsanaado ayaysan dadkaas aysan raacin fadlan hal la raaco wasaaradda caafimaadka tilmaamaha ay bixinayso waxyaalaha la sameynayo ururka takhaatiirta Soomaaliya oo si dhow ula shaqeyso culumaa u diinka in la yareeyo bixitaanka aan la bixin
haddaysan muhiim ahayn laakiin loo baxa keliya waqti yaroo qofka soo adeeganayo in goobaha la isugu tagaayo la joojiyo in ardada guriga lagu haayo oo la kala dhowrsanaado waa mahadsantihiin waxaan rajaynayaa ilaahay cudurka inuu laga qabto labada qof oo laga helayna yani uusan kusoo bixin ka badbaadaan wasalaamu calaykum way mudan wasiir waa cabdicsaabka Universal TV labada qof ee cudurka ku sheegtay in laga helay coronavirus-ka ma ragba ma dumarba xagee ka yimaadeen sideesay tahay awoodda dawladda Soomaaliya ee ku aadan cudurka coronavirus labada qof waa laba qof oo raga dibadda ka yimid caafimaad qabo ilaa iyo hadda waxaan idiin sheegaya inay yihiin laba qof oo dibadda ka yimid hadda korkooda uusan ka muuqanin cudurka kaliya la jirkooda uu ku jiro viruska ilaahayna aan ka rajaynayno inuusan ku soo saarin hayn doonna intii loo baahan yahay maalintii uu dhammaado waqtigii loogu talagalay baaritaan kaloo zaa'id loo sameeyo